أويس محمد أويس سمع محمد أويس أد بعض ما تسنت محمد أويس سؤال شاء العقتي إماراتك أي بلن قادين سيدي مالين دويد كوشرتي وربحين تايدا وحال السمين دونا قدية اسكو دفع أو هذي كتال بحين نقول لهيدي هذي فلنت نقول لهيد با أرنتها هوش عقبتها قدية دا سانا قرشين دونا العقتو سيدا يبحيس يهالكي كوبحيسو lacagtuna lacag borshandad lagu soo qaadayay ma ahayn waxay lacag systemka dawliga ah soo marayso oo sida lagu bixinayo iyo halkay ku baxaysaba ay qorsheysnaan doonto arrintan kale su'aashan waxaad moodaa saddexdiinuba idinkoo isku xigay inaad weydiisan malaha jawaabteedaan idin qancin 26 Juun sidii loo dabaaldegi jiray iyadoo aan la weyneynayo maalinta haddana wax badan baa laga bedelay si dadka abaaruhu saameeyeen loogu gurmado arrinta ah labiska ma la bedelo محمد أويس وأديكو بالصومالي بعتهاي واجبك مدحض سارن مدلا مدح باكو سارن دركا موحبات كبدش قفل بس يدو ولا بسنة شريون بقول بسنة يا واجبك قرمتك كسارن سيدو فلين لها مو وفين لهانا ولا وفين يا ود ما تسنتها هي okay magaalada wasaqaysan oo maxaan idhahdaa maamulka gobolka Banaadir ayay shaqadiisa tahay anigu gobolka waan ka shaqeyn jiray shaqo madaxtooyada u taalana ma yahayn markaan gobolka ka shaqeynayay shaqada nadaafadda magaalada haday noqon lahayd iyo howlaha kale adeega dawladda hoose gobolka iskale marka su'aasha waa inaad gobolka hadii ilaahay ma weydiisaa soo mikrofoonka ninka u dhiib magaca aad baad u mahadsantahay amni darrada magaalada ku soo korodhay amnigu sidaad og tahay waa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha hortabinta u leh dawladdan waana lagama maarmaan in qofka Soomaaliga ahi uu meeshuu joogo iyo halkuu ku nool yahay si xorriyad nabadgelyo ugu la noolaado marka laamaha amniga anagoo la kaashanayna arrinta waxa howlwadeennada amnigu ay ka qorsheeyeen waxaan idin la wadaagi doonaa shirka jaraa'idda dambe haddii arrin degdeg ay jirtana waxaan ku soo qori doonaa page-kayga mikrofoonka ninkan soo dhigo aad baad u mahadsantahay sidaan kuu sheegay maadaama arrinku arrin amni uu yahay waxaan samayn doonaa haddii ilaahay idmo shirka jaraa'idda dambe arrin su'aashaas way soo noqnoqotay waana cabasho magaalada taalla waxaan halkan keeni doonaa taliyaha booliska gobolka insha Allah si uu su'aalaha halkan uga jawaabo arrinta amnigu aad bay muhiim u tahay amni darradu shabaabka iyo dadka dilaya kaliya ma aha qofku haddii uu hantidiisa iyo naftiisa la nabadgeli waayo cid oo la cid kala nabadgeli waayahay waxay halis ku tahay jiritaanka dawladnimada iyo shakhsiga Soomaaliga ah marka saasaan iyadana aan ku xallin doonaa hadii Allah magacaaga walaal
aad baad u mahadsan tahay arrinta amniga iyo go'doonsanaanta magaalooyinkaasi waa su-aal aad miisaan u leh waxaanan samayn doonaa haddii ilaahay idmo waxaan jawaab idinkaga keeni doonaa xafiiska amniga qaranka go'doonsanaanta magaalada gobolka bakool guud ahaan buulo burde bakool waa goboleed magaalada maxaad ii weydiin weysay mashquulada go'doonsan bakool soo gobolka oo idil maaha gobolka oo idil ma go'doonsan yahay okay buulo burde iyo gobolka bakool amni ahaan waxaa xafiiska amniga qaranka uga qorshaysan iyo tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si aad uga warhaysaan dadkan ugu gudbisaan jawaabteeda waxaan idinla wadaagi kulanka dambe insha allah arrinta ah jihaynta siyaasadda dalka oo wax badani ay iska bedeli karaan maadaama sidaan idiin sheegay Israa'iil aanan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed waxaa la yidhi wax gunti lagu qarin kara ma ahan arrintaas wax hoos loo oran karo ma ahan kulli talo weyn baa dawladdu ka geli doontaa waana talo shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo howlo badan u taala wax nin iyo laba ay go'aan ka gaari karaan ama anigu hadda jawaabteedu ku siin karana ma aha طبعا سليمان سليمان إسحاق aad baad u mahadsan tahay ujeedada aan u bilownay shirkan jaraa'idee noocana iyo inaan xorriyad idin siino su'aalaha sida doontaan aad noo weydiisaan waa in dadka shacabka iyo dawladdu ay isku soo dhawaadaan in talada shacabka loo dhaweeyo waxaan sameynayaa maadaama su'aashaas su'aal weyn ay tahay oo militariga magaalada ma laga bixin doonaa iyadana waxaan ku dadaali doonaa inaan taliyaha ciidanka idin hor keeno si uu isaguna uga jawaabo su'aalahaas ciidanka waxa lagu sameeyaa waxaa jira dad badan oo aan military ahayn oo military iyagoo iska dhigaya maxaan idhaahdaa dambiye iyo khaladaad geysta kuwa military oo iyagana khaladaad ka dhaco way jiri karaan marka waxa uga qorshaysan iyo sida wax yeelayo insha Allah waxaan idin la wadaagi doonaa markaan idin hor keeno iyo idin su'aasha weydiin doontaan hadawaa kamarada
su-aasha koowaad waxay ahayd lacagta madaxtooyada lagu leeyahay soo ma deyn lagu leeyahay horta su-aashaas jawaabteeda waxaa mudan inaad weydiiso maamulkii hore ee madaxtooyada wareejiyey maadaama iyagu sidaad sheegtay ay maxaa yeele anagu sidaad sheegtay waxbaana lagu wareejiyey anagu waxbaana wareejin marka sharaxaadeeda iyo maxaan idhahdaa iyo qeexideeda iyagaa leh tan labaad oo ah dadka iyaguna abaareysan ee magaalada muqdisho degan deeq dadka abaareysan waxaa faraq u dhexeeya dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad danyar ah marka waxaa faraq u dhexeeya dadka abaaraha waqtigan jira iyo roobabkii baaqday ay saameeyeen u gurmashadooda iyo dadka danyarta ah wax gaarsiintooda waa laba arrimood oo shaqo isku lahayn tamaanta u daran oo madaxweynuhu ergeyga gaarka u magacaabay oo ummadda Soomaaliyeed loogu baaqay munaasabad kasta iyo mar kasta iyo si walba ay u heli karaan fursad ay dadka ugu gurmadaan inuu waa dhiigbaxa maanta socda ee dadka abaaruhu ay saameeyeen marka danyarnimadu waa wax noloshayada ka mid ah Soomaalidu waa wada danyar anigii adiga danyarta ka mid ah marka waxa hadda diiradda la saarayaa waa dadka abaaraha iyo roobabkan baaqday iyo xoolaha baaba'ay iyo dalaga ay saameeyeen aad baad u mahadsantahay maadaama tirada madaxweynuhu markuu wareejinayo 5,000 buu ku sheegay lagu wareejiyay madaxweynaha faylkii wiilasha meesha tababarka u jira oo ay jiraan waxaan shaki ku jirin maadaama amnigu uu yahay waxyaalaha hortabinta ula dawladdan in maanta maalin looga baahi badan yahay ma jirto waa la keeni doonaa qorshahoodii baa socda hasha ila soo lisna maaha 5,000 oo nin in la soo daabulaahi wax badan oo waxay u baahan tahay ama logistiga ama maxaan idhahdaa dhaqaale kale ah marka dawladdu diyaar garow bay ugu jirtaa wiilasha sidii loo keeni lahaa loona howlgelin lahaa iyo looga faa'iideysan lahaa xoogooda la kulanka adiga hadda soo ma garanaysid marka uu mudaharaadku dhacay waad joogtay Soomaaliya waalidiinta intaad contactigooda haysa keen waa la fariisanaya intii dawladdu ay eegto information oo lagu wareejina waa la wadaagay aad baad u mahadsan tahay inaan doodna ma ahan haye mikrofoonka wax aqliga gali karaba ma aha meesha ma xaafad kira loo aaday ma aha waxba kama jiraan 5,000 oo nin oo dawlad kale u tababaraysay baa lacag kira lagu leeyahay oo raamad loo haystaa wax nin weyn meel la soo istaaga ma waad mahadsantahay yaa kaloo su'aal qaba yaa kaloo su'aal qaba aad baad u mahadsantihiin